abwaan baarleex waxa uu ka mid yahay abwaanada Soomaaliland waxa uu muddooyinkii u dambeeyay u jiifay gurigiisa xanuun ka haleelay wadnaha kaasoo keenay inuu socodkii tahli waayo. haddaba Home Cable TV ayaa ka war helay xaaladda abwaanka markaasi ayaa waxa uu ku booqday gurigiisa oo ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Halwadaag. ugu horeyna waxaan wax ka weydiinay duruufta uu ku nool yahay. waan xanuunsanahay muddo badan in gaari aan saaro gaari aan fuulo mooye kadinka kama day karo. Cabdiqaadirow albaabka iga soo horjeeda ma gaadho, musqusha ma geli karo, jidhkoo dhan way bararayaan waad aragtaan waxaas waa barar way marka waxaan waa barar aad arkaysa sina marka xanuunkaagu muxuu yahay dhakhaatiirtu maxay ku sheegeen? aan dhiikar waan qabaa waas waa irbada habeenkii aan isku baarayay wadnaha foolofka baalka la yiraahdo ee dhiigga firdhiya ay dhamaaday dhiiggii xididadii ma gaadhayaan marka afkaan kala qaadaya waa neefdhabaya guriga kama baxo suuqa Hargeysaadii ummadan dhex socon jiray ma dhex socdo ciyaal agoon iyo ciyaal fara badan waan hayaa ehel kaleeto oon meesha ku hayaana ma jiro ilaahay weyn mooyaane. marka dhakhaatiir dalka gudihiisa waa tagtay maxay ku yiraahdeen marka? dhakhaatiirtii waad aragtaa waxaan tagay kiwi masaaridaan tagay dabay baan tagay waxaan tagay Maxamed Xasan baan u tagay waas waa waraaqihii uu soo siiyay waxaad arkaysaa waraaqihii dibadda meel ka sokaysa laguma tagi karaa ku qoran marka foolofka bedelaadiisana waa lacag awoodna ma hayo ilaahay baa awood marka maxaad ummadda ka codsanaysaa? ummadda wax horta ka codsanaysa marka horeysa ilmaha yarka iyo naftayda waxoogay lacag yar oo mushaar oo gurna ah oo madaxtooyada aan ka qaadan jiray lacagtiina waa laga goostay anigana in dhaqaaq karo shaqaysan kara ma marka waxa weeye adduunyadan saa ma sii soconayso nin socod badanna ma socon karaa u dambeyn nin cuntada aad u cuni jirayna wax ma cuni karaa u dambeyn nin hadal badanna ma hadli karaa u dambeyn waxa weeye waxaan codsan lahaa qabyaaladu waa shay xun ilaahay agtiisa qabyaaladu ma taalo abwaan kale hadduu maanta jiray waa la qaadi lahaa ummadda Somaliland meel kastoo joogto ummadda Soomaaliyeed wixii muuqayga iyo magacayga garanaya waxaan codsanayaa saan u dheefdhabayaa iga dhaba waxaan u baahnahay dhakhtar Hindiya ilaahay baa mahad leh intaasay ku xiran tahay caafimaadkaygu ilaahay waa wadaadaan magan iyo marto ahay aakhiriya adduunkaba ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda muslimka inuu ilaahay cabiidiyo farad khayr qaba ilaahay ii soo diro abwaan kale haddaan ahay waa la qaadi lahaa halkan uu Muuse Biixi ugu iman lahaa Cabdiraxmaan Ciraaye iman lahaa Faysal Cali Waraabaye iman lahaa waa la soo booqan lahaa waxa weeye tirada kuma jirin laakiin buundada weyn ee xagga ilaahay baan kaga jiraa waayaha adduunka iyo waqtigu waa wax ka adag waxaana laga waraystaa ninkii waaye soo jiray nin war dheer ku waaraanaya weydi dhagax buur waraabuhuba weysweeshadaa wadana jooga waddankiiyo wuxuu kala jiraa waabka geeda iyo waa wada wadaaga walaalo iyo kuwii aan ahayn waraysadii aadan ee weynahay nagu ogaa weliba guurkooda siday weeciya ay noo dhaheen baan weli ku joognaa. waxaa jira dad fara badan oo ku dhibaataysan dalka gudihiisa u baahan in la gacan qabto waxaan Home Cable TV mar walba u joogaa inuu dadka duruuftooda soo gudbiyo. Cabdiqaadir Codey, Home Cable TV, Hargeysa.